السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا قوي إنجنير قادر أي channel كين بقية تي في لما أنتي كسر دوالي مالي وناسن رمضان مبارك ما عندي ميرك ستوى شوف تابع and هذا channel كي كوعس بتي please subscribe like share and comment إنتاك بعد يوسدي أي نهربا أي نقص وضع هذا اللي فيديو لي نهره كورونا فايروس كي وحوي دل كان أنا وأن شوقو كندا كارحان مقالة تورنتو يستب بقوس كسر دعيا waqtiguna wuu isbedelayaa wadan kastaba dadka ku noolna kulley dib badan buu soo gaarsiiyay baalku sidaa hadday tahayna maxaan idhahdaa sidaa hadday tahayna waxa weeye shaqooyinkii masaajidadii cibaadadii shaqadii iskuuladii waxyaabo badan buu kala xayray oo wala socotaan oo waxa weeye waa international disaster ama waa maxaan ku dhahaa waa dhibaato caalamiya oo dunida timid balse ilaahay wuxuu wada cidna joojin karmayso balse waxaan doonayaa inaynu ka hadalno dawladda Canada oo ku dhawaaqday xilliga la furi doono sida loo furi doono sida ganacsigu soo noqon doonaan shaqooyinkii waxbarashada maxaan ku dhahdaayay waxyaabihii kale kala socodkii maxaan ku dhahdaayay gaadiidka kala kooshay wadamada falaydadii balse dawladdu step bay waxaan uga hadashay horta waxay tiri shaqooyinka waa lagu noqonayaa balse ha lagu noqday qaabkii loo noqonayay maxaan ku dhahdaayay in detail ama si warbixin oo caadi ah gudaha uma sii gelin balse waxay sheegeen in lagu noqon doono shaqooyinkii dadkii maxaan ku dhahdaayay dhibtu ka soo gaadhay dhibaatadu ka soo gaadhay wadankan shaqooyinkooda ka fariistay inay shaqooyinka ku noqdaan balse shaqadii maaha may oran dawladdu beritola lagu noqonayaa iyo saatan baa lagu noqonayaa because waxa jirta dadkii shaqooyinka fadhiyay waxay qaadanayeen maxaan ku dhahay mucaawinooyin xagga dawladda ay tabarucaad ku bixisay iyadoo marka loo eego dhaqaalaha ay dadku sameyn jireen xataa dadka hoose ee low class people ka waxaan ka wadaa low income families ka wadanka dabaqada ugu hooseysa ay dadku u badan yihiin waxa weeye macni dawladdu waxyaabaha ay ku kabaysay uma cuntameyn dadka ama wax gaarsiisan maaha lacagta qofku sameeyo wadankan Canada oo kaliya ma hina adduunyada dal walba wax buu maartay dadkiisa iyo shaqaalihiisa iyo nooc walba haadaan shaqaalaha caafimaadka dadka caadiga noocay doonaan ha haadaan ciidamada ha haadaan wax walba wax weeye qof walba wuxuu u baahan yahay income because qof kasta adduunyada uu shaqaysan jiray intooda badan dadka waxay shaqaynayeen ka aan shaqayna qof family-ga uu ku tiirsanaa markaan saalay yani dawladdu wixii ay ku tabarucaysay iyo dhaqaalihii ay ku tabarucaysay ku tamaraaday bas still bina aadanka ilaahu buu gaarsiin kara dawladdu wax ma gaarsiin karayna Soomaalidu waxay tiraahdaa in biyaha saabadada laga dhirgaa wax kastana ama lacagaha ama diyaha ama shaqaha ay xooga gumad ka dhirgaysa marka dawladdu aan soo noqdo article-kii dawladda ama nuxurka sheekadeenan caawa ama video-geena in Britole ayaa si fiican loo furayaa oo isla maantadan ah laakiin markuu waagu bariyay yani baan qodaa hadda waa loo habeenimo anaga xagayga markay sidaa tahay waxa weeye dawladdu waxay ka hadashay qaababka ay u furayso detail gudaha uma sii gelin laakiin warbixinta waraysiga loo saaray bixiyay waxay ahayd iyo khubaro maxaan ku dhahdaa xagga qaabilsan arrimaha maartay in soo jeedinta iyo talabixinta waxay sheegeen in Britole magaalada May ay taariikhda May ay tahay 5 bisha May ay tahay in la furi doono sida loo furayana step ay noqoto dhaqaalihii dadkii macaawinay dawladda si aanay wali laga jirin si socon doonaan taas waa tan kale waxa weeye dunidu way soo furmaysaa dalal fara badan ba ayaa oo aan Canada ahayn oo ka baxsan Canada ama North America step by dadku soo laabanayaan maadaama ay tahay inay taxadir badan ay ka muuqato dhammaan dawladaha si gaarana dalkan anigu aan u ogahay oo aan dhageysanayay wararkii newsida la socday magaalada waxa weeye si tartiib ayay magaalada u furmi doontaa bas step bay dawladdu sheegtay waxaan lagu aqbalay kareynayo oo aan sharciyada lagu fulinayn waayo qof kasta waxa weeye shaqadiisu uu noqon la dadka qaar ba company-dii ka tagay qaar ba lay off la siiyay macnaheedu ay tahay macni company-ga ba aanay hadda dibadda ka yihiin oo shaqadii maartay ruqsad laga siiyay oo shaqadii ka baxeen dad ba dib shaqooyinkoodii la yiri ku soo noqday xilligii lagu soo noqda qaar ba dib abaabul la gareeyay qaar ba bila shaqaha waxyaabo iska fara badan baa jira family-yada iyo dabaqada dhexe ganacsiga qaar baa albaabada loo laabay oo ay adagtay basay ku soo noqdaan qaar baa dib soo galaya marka waxyaabo fara badan baa iska jira in waxa weeye in kastoo aan video xiga aan
maxaan ku dhahdaayay aan ganacsiga iyo aan isoo tusi doono wixii macquula ee la furo haddii berito la noqoto oo aan idiin soo tabin doono halka kolba wararku wax marayaan balse haddana iminka dowladdu waxay cilaamisay in xilligaa ay furmi doonto aanay maxaan ku dhahdaay wax walba suurta noqonayo inay mar keliya uu wax wada furmaan in dal kastaana uu dalkan uu la mid yahay oo dalalku ay isku dhowdhowday dal waliba wuxuu ka taxadirayaa inay magaranaysaa ay xanuunada haddana dib u dilaacaan in muddo ugu fiican waa la siiyey wadamada qaar weli shaqdhownkay bay ku jiraan macnaheedu weli way xidhan yihiin way adagtay sida ay maxaan ku dhahdaay ay adduunyadu iminka horta isugu furanto degdeg because waxaa laga cabsi qabaa inay waxaan haddana mar labaad dhacaan because wixii maxaan ku dhaha coronaviruskii daawooyinkii weli rasmi aan lahayn oo ay beesha caalamka iyo caafimaadku ay ku mashquulsan yihiin hadday noqoto UN-ta hadday noqoto dhakhaatiirta caalamiga ee cudurka aan lahayn dhammaan waxyaabahaas oo dhan weli wax cad maaha oo si clear maaha adduunyadu weli waa mashquul markay sidaa tahay waxa weeye annaga xaggayga waxaa la ilaamiyay magaaladan Toronto ama dalkan Canada in Britole May ay bishu ay tahay 5 isu socodkii loo furi doono balse si tartiib ay noqon doonto ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahay culayska naga qaado because inagu dad muslimiin si gaara waliba dadka muslimiinta marka la hadlayo waxa weeye inay dana badan noogu jiraan masaajidadii iyo cibaadadii waayo rabadaantu waxay ka qayb badan tahay intaas oo kun oo sanadood ee ajarka ka soo galaya wuxuu noloshaada dhan u ka badiyay hadaad ku beegantaa habeenka la qadarka kaliya oo wax qiimo leh adigu masaajid ku tukanay oo soo cibaadaystay oo maartay wax alaala soo xunay oo xoogaaga iyo xalaala soo xunay oo caafimaad qaba masaajidka aad gasho salaad ku soo tukato oo ilaahayna wax fiican uu kala soo kulmiyo intaas oo kaliya wax qiimo weyn weeye haddaan soo noqdo maxaan ku dhahdaayay barnaamijkeena ama xubinta hadalkeena ama barnaamijkeena oo ahaa ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay noo soo fududeeyo in wax weeye dadaal baa aynu muujinaynaa dadka Soomaalida waddanka u dhaqanana amaan ay mudeen maadaama oo ay nidaamkii shuruucdii dowladda raaceen inkastoo warar qaar iska sheegayaan dad qaar iska baxaan laakiin numberka Soomaalida ee baxaya way iska yariima marka tirada waddanka loo eego iyaguba way socdaan dadka kalaba iyo ajaanibta kalaba marka dhammaantiin waan salaamayaa intaas baan doonayay inaan soo gudbiyo maxaan ku dhahday maanta video ka xigan waxaan ku soo gudbin doonaa kolba barnaamijyada halkay marayaan dhammaantiin waan salaamayaa dhageystayaal meel kasta aad joogtaanba please qofka channelka ku cusub please subscribe like share and comment maalin wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.